السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته guys soo dhawaada YouTube channel kan gadaan soo malaas official fadlan channel ka daa ku cusubta subscribe noo saar aad iyo aad u mahadsantahay waa tahay maatiyo muuqaal cusub waxaa furmay barnaamijkii aniga aan ku imid ee DV Lottery 2025 waxaan kula wadaagayaa qaabka aad telefoonkaaga uga xareysan kartid saaxiibo badan ayaa iga soo codsaday inaan barnaamij ka soo sameeyo sanad walbana waxaa la qaataa 50,000 qof laga yaabo adiga marka ay daawanay 50,000 qof inaad ka mid noqotid nasiibna u yeelatid haddii fiidiyoon ku soo gaaro muuqaalka save leh si waddo kastoo aan maray aad u martid waxaad ku qoraysaa DV Lottery ka ku soo baxa horeeya ayaad ku dhufanaysaa kadibna hoos ayaad u soconaysaa waxaad ku qoraysaa pin information qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa kadibna lambaradan ayaad buuxinaysaa kadib ayaa xogtii halkan part 1 xogta ayaad gelinaysaa tusaale ahaan waxaan ku bilaabaynaa qof magaciisa last name-kiisa waxaan u bixinaynaa Maxamed in la yiraahdo first name-kuna waa magacaaga adiga la yiraahdo waxaan u bixinaynaa la yiraahdo Mahad okay middle name-kuna waa magaca aabaha waxaan u bixinaynaa tusaale la yiraahdo Xasan in la yiraahdo ayaan u bixinaynaa okay kadibna haddaa gabar tahay waxaad dooranaysaa female haddaa nin tahay waxaad dooranaysaa male halkan waxaad gelinaysaa dhalashadaada tusaale ahaan qofkan wuxuu dhashay bishii 10 October kowdeedii 1999 halkan waa meesha aad ku dhalatay magaalada ayaad ku dhalatay ayaad qoraysaa tusaale qofkan wuxuu ku dhashay Boosaaso magaalada yiraahdo okay meeshaana waa waddanka aad ku dhalatay waxaad qoraysaa waddanka aad ku dhalatay tusaale waxaad ku dhalatay Soomaaliya ayaan halkan ka dooranaynaa okay intaas inaad la fahanay ayaan rajaynayaa listigan dheer ayaad Soomaaliya ka raadinaysaa okay Soomaaliya ayaa dooratay halkan marka ayaad sawirka soo gelinaysaa marka sawirka ayaad halkan soo gelinaysaa sawirkaaguna clear ahaadaa tusaale sawirkan ayaan gelinayaa waa aniga okay sawirkan ayaan gelinayaa lottery-ga okay halkan waxaad qoraysaa marka halkan waa optional wixii optional waa ka tagaysaa uma baahan inaad buuxisid halkan waxaad qoraysaa address-ka tusaale waxaad digan tahay xaafadda la yiraahdo Hodan oo ka mid ah Muqdisho Hodan ayaa digan tahay S baa raacaysaa SST oo laga soo gaabiyo street muuqaalka inuu soo gaabto ayaa rabaa aad uma dheereynayo halkaana waa magaalada ka tirsan tahay Muqdisho ayaa halkan qoraysaa okay Muqdisho ayaa halkan ku qoraysaa halkan waa state-ka ka tirsan tahay isla Muqdisho ayaad ku celin kartaa haddii kalena gobolka ayaad ku qoran kartaa oo ah Banaadir right halkan zip code-kan uma baahna inaad buuxisid waxaad dhahaysaa no postal zip code because of Somali zip code ma laha halkan waxaad ku qoraysaa waddanka marka meesha aad joogtid waaye haba meesha aad joogtid tusaale Muqdisho Soomaaliya ka tirsan tahay right so marka Soomaaliya ayaa halkan haddana ku qoraysaa halkan marka intaas markaad buuxisid mail address-kaaga halkaana waxa waaye country-ga aad maanta ku nooshahay haddii uu kala duwan yihiin waxaa leedahay kala duwan yihiin hadday isku mid yihiinna waxaad ku qoraysaa meesha aad ku nooshahay oo ah Soomaaliya okay inta markaa qodhig number inaad geliso ma baahnid waa iska optional email-ka ayaad qoranaysaa halkan qoraysaa tusaalaha email-ka waxa waaye waxaad gelinaysaa ahmed12 @gmail.com email-kuna waxa ahaado email sax ah oo haysatid isagii ayaad ku celinaysaa haddana okay halkan waxaad dooranaysaa marka intii hadda aqoontaad tahay tusaale ahaan haddaad high school haysatid degree high school ayaad dooranaysaa halkan marka waxa waaye inaad marriage tahay inaadan ahayn unmarried ayaan dooranaynaa hadda maadaama single aad tahay halkan waxaad gelinaysaa walaalayaal 0 haddaad carruur haysan kadibna continue ayaad dhahaysaa 0 children ayaad gelinaysaa halkaas 0 children waxa waaye carruur ma dhalin haddii marka wax kaga khaldamaan isaga ku celinaya continue ayaan dhahaynaa okay okay continue ayaynu niri kadib hadda waxbaa inaga khaldamay wixii inaga khaldamay isaga calaamad guduud u saaraya okay waxaynu ilownay country okay inaad ogaatid baan rabaa country Soomaaliya ayaa dooranaysaa marka okay Soomaaliya ayaa dooranaysaa inta kale waa inoo sax yihiin continue ayaan dhahaynaa marka hadda xogtii baartugii xogtaan marka uu ku siinayaa xogtaan aad fiican u akhri waa xogtaadii oo summary iska sax
kadibna markaa xogta dhammaysid ayaad waxaad dhahaysaa submit markaad tiraahid tan hadda waa sambalkaa submit markaad tiraahid waxaa kusoo baxi doona xogta kusoo baxdo ay ku qoran yihiin configuration numberkaaga iyo magacaaga iyo date of birthkaaga warqadaas screenshot ka qaado ama email ku dirso xogta markii may aad guulaysatid lagaa rabo weeye waxaan ku rajeynaya insha allah videogan aad save garaysatid qof kastoo aad maraykan jecel yahay la jecesha maraykan yimaada u dirtid nasiib wacan